leeyahay inta qalbiga jirecsanow waxaan ku leeyahay kiniinka madaxa iyo maskaxdiisa soo agdhiga waxaan ka warhaysaa may walaalo aan u dhintay buuri si kadisa marka anigu marka uu dhintay oo waa run mise adigu yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilhaantiin ba khayrta qaaliga ah waan idin salaamayaa waxaan leeyahay Ramadaan Kariim meel walba oo dunida daafaheeda iyo dacaladeedaba aad iga daawanaysiin waa walaashin la kishow oo caawa jawi kale idii wada waxaan leeyahay intii qalbiga jilicsanow kiniinka madaxa iyo biyo mooysa xawn soo qaata caawa waxaan idii wadaa barnaamij aad ula dhici doontiin on hadda idii bilaabay barnaamijka waxa la yiraahdaa so iyo yaab كل قصية مركز مقشة وحياة بدن بقلبك صور عيا مركز وحلية أنت قلبك شرع سنو وحن كل كنيك ماذا حيم ويسحب الساق لك عاو برامجك قصية وحمرت إيجاء ولا شيء اسمه كيمو اسمه وحلية هاي سودو ولا القالي كان يلعب سودو هذا ما سنت ولا شيء لكي وحنا كان آديات بسلام ما توصلين تمام استيت شغال وحلية رمضان كريم سخاصة محمد سلام يا أنا برنامج تكشف قفل بقى تغيير أي هاي أو مشكلة وغيره وصيدا كذي شيء صوت جاسوي لا ولا ها صوت جاسوي لا ولا كل أدون كان مشروع قفان قصة الله هين كل كأن قصة الله هينا يقدم بيسا حتى بقى أسمع وحكوا دعي قصة عيل وأذن حدين بدن يجدانا إنه جوار رميدون تا أسمع ذكر waxaan doonayaa halkan inaan ka hadlo maanta qisadayda iyo sidee u dhacday aniga waxay ku dhacday qisad jacayl qof jacayl samaystay bas jacaylkaadna ku guul dareystay ayaan ahaa waxa dhacday habeenada kamid ah ana suuqa ku soo socdaa oo markaa aan balan lahaa oo qof kale u balansanaa baa waxa dhacday bas baan soo raacay baski markaan soo raacay aan ka tagay baski meel jaama oo bariishka oo tolsoonta loo yaqaano baa waxa dhacday wiil gaari wata soo istaag kadib wiilkii waan soo dhaafay anigu waxaan haa qof kale siineysay oo u manhaynba qof kale jaanis wiilkan in badan ayuu daba socday oo waan talaaba dheereynay anigu kadib wiilkan ku soo daba galay wuxuu igu walaal maxaad la cararaysaa mid sugtid uma jawaabin anigu haddana mar labaad ayuu weydiiyay waanan soo jaleecay wuxuu igu walaal gaari ayaan kaga soo cararay halka aad mareysay imkaad baska ka degtay aan gaariga soo qaatay siiso haye waay baan ku uri balse anigu hawsheeda ayaa iska sii wato waan iska sii socday wiilkii wuxuu iga dabeeyay anigoo wiilkii kale la taagay wuxuu igu dhahay walaal way kan waxa ku dhahay walaalo wadada ku qulqul yaani hidee mala qof qaldan badi moodaysa oo soo soco horo soco wiilkii uu iga dhaqaaqay khilaaf baa naga soo gashay inaan kaan isla taagnin sababtoo tahay uu hinaasay waxay gaarigan waxay ninkan ka daba hadlayay kadib ana carada waan adkaysan kar waayay oo waan ka soo dhaqaaqay asma afarax kalo wiilkan aad la taagnayd markaa wax weeye wiil xiriir rasmi ah in ka dhaxeeyay mise waxa weeye wiil isagu iska caadi ahaa والله لك وحها ويل عادي شخص عادي بنقدر حي ويلك واحد شعيل أنا قمت حي مركو كوي مي ويلك وكاتب يمي وإن كادولة تاجر كوي محضر أنت ويلك وين إيري صوتي تهاي دمان هاد الكرهن أو ويلك كلا أياك تاجنا مركا ويلك وين تقدري مركا إنا صاحب نحيبة مكايلش تبتة كدي ويلك أيان خلافنا يعني وتجيه oo la markaa ninkan xuuha gaarigan ka dabay muxuu yani waxyaabo badan buuq badan igeliye kadib buuqi waan adkaysan kar waay waan ka soo dhaqaaqan anigii gabadhan saaxiibka ahay gabadha aan saaxiibka ahayn ayay weydiisay saaxiib wiilku aad u qurux badnaa ee waayo ma garanay baan ku raaniga aftarkayga wadadu ayuu iga soo raacay masaasaha ay waay anagoo soo socono wiilkii hadal hayaan leeyahay uu qurux badnaa saaxiib balse calafka ayay dhaafiyay ba waxa dhacday anagoo sheekadiisii u wadana la kiyay baan isku aragnay si kadib hadana mar labaad waan isla habeenkii markan oo wiilka la taagan wiilku ka dabay yimi yani wax dareeno madahayni uma hay laakiin markii kale ayaad wiilka quruxdiisa jaleectay markii daban quruxdiisa dareemay kadib waan soo dhaqaaqnay anagii oo inantii oo isla sheekaysanayna oo isla qoslina online hay saaxiib wiil dhaafo oo chance wuxuu haadayna dhaafay ka samarno ba wiilkii mar labaad naga soo baxay si kadiisa wana farmasi ayuu ka soo baxay isagoo dawayn sita marka wiilkii waa ku maxay
alla wala waa wiilkii wala maxaa saygu gashay iyo walaal raali haw walaalkay ayaan ag taagnaa markaa sheekada waan qarnay oo wiilkaan shukaansanayay waxaan ka dhigay inuu walaalkay ahaa walaalkay ayaa ila taagnaa maanan kula hadli karahayn ninka raali haw walaalo magaciisa ayaan weydiiyey magaciisana wuxuu igu sheegay Xanad okay ana waxaan u sheegay magacayga oo Asmaaha kadib halkii aan anagu sheekadii ka soo bilaawnay habeenka waxaan qaadanay jawi qurux badan oo aad iyo aad qurux badan because halka habeen ay qofka bil aadanka aad qiimeeysaa halka habeen aan anigu soo qiimeeyay guriga ayaan ku soo laabtay habeenka aan faraxsan qoslaya kadib waxa dhacday wiilka habeenkii maan isxiriirin isna inuu soo xiriir ana maan xiriirin habeen kale aan si kiisa hadana isku giimanay meel hudheela asku aragtay kadib marka meesha hudheelka soo lambarkaaga maxaa helay wallahi ana lambarkaygu iga baxay ana iga baxay lambarka dib u ceshanay lambaradan dib u kala qaadanay si ayaan dib nolosheeda u bilaawanay si aad ayaan u wadaanay nolosheedii haday waxaan ku habeen iyo maalinba noqoto eele waan is arki jirnay yani hal habeen xitaa awoodiisa ma joogi karahay okay waxaad yar fahansiisaa markaa ma jeclaatay mise xiriir iska caadi ah lakiyay horteed jacaylka qofku wuxuu dareemaa markuu qofku ka maqan yahay sax ee markuu ag joogo ma dareemo marnaba balse jacaylka waxa iga badnaa farxadda badan ee isugu siiyay kalsoonida aadka u badan ayaa farxadda ka tan badnay sax wiilkii sidii aan anagu nolosheedii u sii wadanay aan dhowr bilood markaa wada socono bahbeen himilada ka dhacay khilaafna soo kala dhex galay khilaafku wuxuu ku iman doonaa waxa dhacday wiilku aniga ayuu keen xaafadayada kadib xaafadayda markuu keenay waxaan galaa markaa anigu qurac dheer saldhiga qurac dheer agtiisa markaa xaafadda markuu ii keenay wuxuu galay oo markaa gurigii dhigay hak wadada kale ka mari laa wax maray wada khaldan oo tii saldhiga galisaya saldhiga qurac dheer ayuu saa ku galay wiilkii askarta ayaa qabatay waa la xiray jeelka ayaa lagu xiray markii aniga la soo sheegay oo saaxiibkii ii soo sheegay subax waan tagay qurac baan u geeyay qadadina qadan geeyay cashadii marka ahayd baan ku noqday saldhiga marka askarigu wuxuu sheegay wiilkan waqtigan xir doona xiriir muddo intee laga xiriir lahaa markaas oo kale 4 bilood baan oran karaya 4 bilood oo yani kaaga duwan oo sanadan aniga sanadka waan mooday inaan qofka la hadlayo wiilkii sidii baa lagu xiray sheeko adigu balwad gaadhay ay ahayd wiilkan lakiyay dhoof ayaa u qorshaysnaa sax dhoofka u qorshaysana waxa dhacday family-giisa inay ogaadeen wiilka in balwad lagu qabtay khilaaf badan ayaa ka dhacday family-giisa oo ahayd qof maanta xiray kadib ay geerka ogaadeen in wiilku balwad waayo qofka halkan balwad ku isticmaalay waddan ku tagana qofka safaruhu ka baxaya khilaafka isagii family-giisa soo kala dhex gashay awgiisa xitaa anaga ayaaba ku kala tagnay oo ahayd habeenka wiilka la xirayay sababta aniga ayaa lahaa sababtoo tahay anaa guriga la keenay oo aniga xaafadda galay anigu marka caladii ka dhacday meesha waxay ahayd saldhiga awgiga inuu galo waayo xaafadaha yimi haddaan xaafadahaygana imaadeen saldhiga ma is arkeen oo family-koodana isku ma dhaceen marka sababta waxa la oran karaa in aad ka dambeysay maadaama ku keenay gurigii anigu waan anigu isleeyahay waayo qof walba dee sabab ay wax ugu dhacaan laakiin aniga ayuu guriga wiilkan ii keeneen waan iga dhaqaaqay wiilkaasi balse wadadu maray tii khaldan ay ahayd oo tii saldhiga ahayd wiilkii habeenkii saldhiga markii laga sidaayo waan wacay anigu markaan wacay teleefanka waa laga qaban waayay mar labaad ayaan ku celiyay walaashay ayaa laga qabtay teleefanka walaashay ay wada hadleen xoogaa kadib way igu dhiibtay aniga ii waran fiicanta waa kheer waxaan ayaa dareemaysaa Xanad oo askartu qori ay la dhaceen marka qoriga halkiisa dabay la dhaceen oo feerayga qaraaceen oo ku soo ducaynaya waana ka xumahay waxa kugu dhacay waa caadi waan soo wada hadlaynaa ma kanisto waayahay habeenmadii horta ma qaraacin oo sababta qof isaga badaalan oo lagu qaraaci karayo qofka habeen labaadkii ma istaghfirullah duhurkii ayaan ku celiyay duhurkii markaan ku celiyay waa laga qabtay waan hurdaa walaal ana ku socodinaya waayahay baaquri haddana waxaan ku celiyay fiidki sax waan hurdaa miyaan kugu oran jaamkii iga daa hay soo qaraacan sabab maxaa dhacay kaliya waxaan doonayaa noloshayda bedelo asmaay adiguna wadadaada raac aniguna wadadayda ayaan raacanaya marka sababta waxaan dareemay inay tahay aniga awgay oo dekadiskii iyo wixii meesha ka dhacay
awgeed inuu igu careysan yahay aniga aniguna aad ayaan u xanaaqay oo waayo waxaan haa qof uu kibirka isagu ka badiyay marka ma ku fikirtay inaad riyo loo kala hadhaan mise carruurta maya ma islahayn saas baa ku kala hadhaysaa ma islahayn waayo waxaan islahaa hadduu caawa carisay habeen dambe isagu nafisaayo ku soo noqon doonaa waayo labada qof hadii is jecel meel lama ku kala tagaan si markay ahayd aniga wiilkii ma qaraacin oo waayo carisayda ayaa bay qaaday oo waayo wiilkii hadal aan igu oran ayuu oo iga tanwi caradii maantaan laba cisho qaba caradii maalin saddexaadii baa waxa dhacday wiil ay saaxiibihiin ayaa soo qaraacay isla habeen marka habeenkan maqnayn habeenkii saddexaad ah in asma fiicanta waa khayr walaal isma fiicna ma sha Allah walaalahanad ma ka warhaysaa may walaalo aan hanad ma ka warhayo mana garanay hanad walaalahanad soo dika xiriirka diga dhaxay ma garanay ma ka aanu hanad marka sababta uu leeyahay hadalkaas baa ahaad waan carisna saayid ayaanu carisnaa sax hanad uu dhintay buu guuri si kadisa marka anigu marka wiilku uu dhintay oo waa run mise adigoo yahay wax kala kooday لكن حقيقة أودين توبلالو إلى هالنحرستو مرحوم كأس وحاطنا حن كأسنا ما نفتح الأمران إلى هالنحرستو مرحوم كادنتاي شكل سامك أسوعتي واحد كي الورود انتاي مركا ريلي وما قاضن لكن بيبض قاضن ما بأمني ما بقى إصلاح حتى ودي منا يا ويقفوا عندي اسمه هذاك تقف دي منا إلى مواكين يعني كا wiilkii baan ku qoslay kulli uu dhimanayo naf walba dhiggeeri naf walba maalinteeda laakiin sidoo qof imika kula hadlayay kama filaynin marka mati ilaahay baa u timi mise laakiin wiilku isdilay walaalo sabab dadka faamiliga iyo buuq iyo waxyaabo badan oo ku furmay oo ka sababtay dhoofkiisii laga joojiyay أوجس أيوس قلت له ويلكو هرت أنا جو قاعدة وابي قلت عضا من آمنين إنه دمنا يا مرنبا بس لفت هذا حب الدراسة قال لا يوم حبست بس سنة يا حتى المرة واحد فاتح هذا المران إنه لا يوم حرسته مرحبا بس أنا ما كفيلن حين ودمنا وقاعد وابا يقولون قصي ويلكي أنا نقول قصلي أو ليه مرة فيلم بدي ودعاء وعاو ما نتفيلين كنت لقول صاصة ما أنا كم نقول يسقى هير لكي استوردي سلاي صدر تاجنا سي أن أؤمنه حقيقة من آمنين أنا ميتكي أي صورة لقاعد صحيح ميتكي أي استوردي سلاي صدري من آمنين أنا أقول صبت هاي قف أتعش هاي وسادو تعش هذا اللي قراو كاتسكي مرة ما آمن سها أنا جو هبنكي ميركو ويجتكي ما كسور كيس أركي عن حقيقة صدقني يسقي هاي قفقني وارحم كاس قفل بودرين كرايا بقى ميركو أنا جايبه يجتكي وحسوا برارجي بعض الأدق الصبح ميال حاسب صاقع صح إن ولا شيء ده يقولوا أي ودي وحقول واحد أركز من رمبا ها ورمبا يقول ترى له إلها نحرسته صمير أدوجو ما يبان كل له بين أي اللي شيء جاي ما دمان ونول يهاي وأنا الله يقرنيا أو ودي عريسي على أوجد أيوة حوس مني وحنا واحد لو كفت معها ويل أي سحبين بقراعة ويل كي يقطع ولا مرحوم كون صاع أصناي إن صلاة كم خرب أين كنت كنا إلها ونحرست أسماي إن ورا سمير ده وكاس ورا له ويل كيساس بكتة جاي أنا ومن آمن مرنا بح تهير وحن تجنا ويل كير ميسن وايو waxaan isaga meherada yani isaga ku yaqaanay sida goobtu shaaxa ka cabay goobtii asxaabtiisa la firsan jiraan ku arki jiray anigu intaba wadaga anigu laakiin wiilka alla kulma amba qofkan u tagaa wuxuu goran jiray uu dhintay laakiin haddana laakiin anigu ma aaminsanayn inuu dhintay isagu wax fariina uu ku soo reebay wuxuu bilaan xariista ma kusoo dhimanayay ay jirtay ma ilaakiya jirto عرضي أنا كلام مقنع في عنا الله هيدا حتى قفقة هذا نوجي مستيليو وحاول بن كلتري لها ونشيك لها حتى والله قفقة ساعدنا ونش على وحن أوجاد ما نتم ويا أنو أنا الآن تيسنو لان كلها أنت لك إيك سوريكتي إيه بس 5 سنة إيك سوريكتي 5 سنة بس إلا حتى 5 سنة ولي ما إلاوين ومن ملاينا يسوى كلاينو ما تأدوك كنوا لها وايو وناجيسي سمركيسي وحوها قفك إبرة عيل كقيمهيسا إن أنا نلو مجدي كشريك عطاك إتصي قفك إبرين كلسوني قفك لسيا ما جرت 5 سنة
وموتنا إلى هون حرستي واحد عريران تميسا waan sameeyay balse xiriirka marnaba anigu ma ku sii raago oo sababtoo tahay qofka doonaya marnaba qofkaas iima noqdo wiilasha mar walba waxaan ka rajeeyaa in isagoo kale ay noqdaan balse khilaaf ayaa mar walba soo kala dhexgala markaas uma malaynayo in isagoo kale jiro ba aan heli doono aan baragan soo shukaasaday in isaga marnaba u dhigmaan okay maxaad kula talinaysaa dhalinyarta maxay tahay jacaylka يعني وقلبك فرن حتقول تلمسها والله هرتلك يا جعلكم يمكن تدكو حيراها جعل ما جرو صح بس جعل وجرا قفك ayaa sameeysta jacaylka balse ma ha jacayl afar cishan too leesku qoslo la kala dhaqaaqo jacaylku waa mid ku qacanta qofkiisa ku sameeysan karayo hada ka xiriirka kula la jacayl ku siin karaya ma weela balse jacaylka runta isaga ayaan bad ka helaysaa mar walba أيوة وكلت هاي إن تحرد أسمين دونتي يمكن ما دام إيش أنتنا تحرد هاي ما دام قفكي أتحلد يعني أو تيسي نقطي أو حقول نفل بقى دمارين يسوع قفل بقى ودلكو حكومية هاي وكلت هاي إن يعني سمين سحرد هرتلك يا حرير أنتي شنتها سنة كسورتي ما كنت حسنا لقى ريبة لبدي سنة ودين بيسي ونسكدين حير سمستو بس قف والبقف كندوني إيمان نقطة إمك مرجيسة وأنت سوي لهي كان إن شاء الله إلهينا إمك ها إلهي ممكن رجينا يقف تسوى كلا وبدل كيسيا أوكي ويلش إياه قبلها وحجرة إنه متبع كل بقف كيد جعلها يأم بواحد جعل إنه عياران بقلبي هذا دعوة كوانا أذو كنت يجيب كبدي صحرايا حد يجنا كورنا horta waxaan leeyahay jacaylku waa lama helaan qofkii helana nasiib ayuu leeyahay waxaan u sheegayaa wiilasha ka taay gabdhaha qalbiyadooda ciyaarta oo jacaylka beenta intaad ku abuurtaan oranaysan nidaman jacaylna waqti la masbuuha ka taa sababtoo qof ayaad qalbigiisa dhaawacaysa adigu bari kama qof ayaad jeclaan kartaa nafsiguna waligii ma gababo digataan buu isagu ku dhigaa waxaan leeyahay jacaylku waa midun ee laba maaha jacaylku waa kala yaqaano la isku jecel yahay la iska waxa ubad lagu wada dhalo wada noolaashaha marka waxaan leeyahay jacaylka aamina war wiilow aad jacaylka ka daaciyarta aad gabadhay wiilka uu ilaali qalbigiisa aad ma santahay asma waxaan ku leeyahay wad ku ma santahay si fiican barnaamijka logala qayb qaadatay asxaabtana waxaan leeyahay aad iyo aad baad ma santihiin marxuumka dhintayna faatixada umara inantana ducada u soo akhriya inuu ilaahay siiyo booska ugu jiray qofka wanaagsan oo u gala qof walba qisadiisu sida loo kala tahayna waxaan leeyahay wiilku halkan baa laga baahan tahay aad iyo aad baad ma santihiin